السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بأصحابتك وحرن شرنك تي بي جي waxaan idinka mahad celinaa sidaad ugu xiran tihiin fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe sidoo kalena sii share garee sidoo uu gaadho dhammaan asxaabtaada. magacaygu waa Adna Maxamed Cali Adna qaran agaasimaha ururka ay leeyihiin hablaha aragga naafada ka ah ee TPG ama Tough Blind Girls qofba sidoo uu yaqaano. waxaa garbahayga taagan sida wada arkaysaan gudoomiye ku-xigeenka ururka walaashii Xamdi Cabdi Sogsog iyo waliba khasnajiga ururka Saacid Maxamed Cabdiraxmaan. maanta ay taariikhdu tahay 18 bishii koobaad 2022 waxaan hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ku soo booqanay Amaal Ibrahim Cabdilaahi oo ah gabadh aragga naafada ah sidoo kale gabadha ay paralyzed waxaana u dheer xanuunka autism-ka. haddaan nahay ururka TPG markasta waxaan u taaganahay sidii aan u caawin lahayn hablaha aragga naafada ka ah iyo ubadka yaryar sidoo kalena kuwa dhibaatooyinka gaarka ah qaba waa noo muhiimadeeda markastaba. waxaan soo gaarsiinay deeq raashin oo ka kooban noocyada kala duwan ee raashinka sida bariis, sonkor, daqiiq iyo waliba itemkayada kala duwan ee raashinka oo ah raashin dhameystiran oo isticmaalo muddo hal bil ah. sidoo kale maadaama ay tahay gabadha yar gabadh aan kicin waxaan soo gaarsiinay xafaayadihii ay isticmaali lahayd hal bil ah. sidoo kale waxaan soo gaarsiinay qadar lacag oo ka kooban oo ah 500 oo Soomaaliland shilin ama $59 waxaana guddoonsiin doontaa walaashii Saacid Maxamed Cabdiraxmaan oo ah khasnajiga ururka. waxay guddoonsiin doontaa Caashi Ibrahim Cabdilaahi oo ah gabadha Amaal walaasheed. walaala Caasha horta marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa. walaala waxaan ku guddoonsiinayaa lacagta qadarkeedu yahay 500 oo Soomaaliland iga guddoon walaalo. ka guddoon aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaal iminka sidaad wada arkaysaan waxa dhinacayga taagan Caashi Ibrahim Cabdilaahi oo ah Amaal Ibrahim Cabdilaahi walaasheed isla markaana ah gabadha gacanta sida khaaska gacanta ugu haysa una xil saaran xanaaneynta Amaal. Caasha soo dhaw hooyo maadaama ay Amaal hadlaynin adiga ayaa u hadli doona bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda ay ku sugan tahay Amaal Ibrahim Cabdilaahi. xaaladda ay ku sugan tahay daawaydanka arkaayo alxamdulillah aniga mooyaane aabaheedna sariirtu saaran meersi kalena ma haysato. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro sax caawinada loo keento. wahagaag hooyo waxaad nooga warbixisaa bal Amaal sideebay xanuunkani ugu dhacay markii ugu horeysay indhahaas goorma ayaa la helay si xanuunkan goormaad ku aragteen Amaal? Amaal xanuunkan markii ay dhalatay 2 jir ay ahayd hooyadeed ay dhimatay wax xanuun ah oo qabtay ma jiro. sax markii dambe ayeedeeda haysay ayeedeed markay dhimatay oo xanuun ay qabtay ma jiro. habaryarteed baa loo keenay. habaryarteed intay haysay ayaynan tan sidan u darxumootay oo xubnahani wada qalaleen oo aragga indhuhu daciifay oo markaasay dhibaatada weyn qabsatay. 3 sanadood ay habaryarteed haysay. sax marka Amaal wax dhakhtar ah oo tusdimi jira hooyo may anu imika waxaan hayay 3 sanadood wax dhakhtar oo tusimi jiro awoodayda baan gaarsiin. marka sax waxaad markaa hooyo nooga warantay Amaal bal xaga cuntada oo kale maxay quudataa maxay si cunta aanu karino baan u jilcinaa dabeetana jiifkaas lafka loogu guraa lagu siiyaa. صح إنكم مركا حفايض أو كلنا قرمة أم سجارة مالتي كبدش مالتي أبر شير بالقبضة صح كنتي قبدي هو يهبلها تي بي شيء أطن هي أنا قبلها رجعنا فذا كهبان هاي وحنا كل وحي أنا كوسو تاكلين كريني وديك تشوشين وبنا ملاينا يا مركا هو أنا وحنا وتاجن هاي إن أنا عاوينا هبلها لبتت كدباتي سن رجعنا فذا كه سيبدو مركي عرور تمهيمة دنا وشيء ده طلباتنا وحوي إننا عدك تتكاسن عدكود لما قلين أنا عدكود ميل دير جالسينه ومد الصوماليات أكو داون دونتي دافع دنيا دكات داون دونتا فرهين تي عدسي قاد هو ده عمرنا سامحويه فرهين تي عدسي كان هو ده عمرنا وحوي أود عن دكتور فوقيه ما هي وحنا قبها دي دكتور لمريو إني عافمات هي اللي ده إلهي عافمات سين لها
marka waxaan ka codsanayaa adduunweynaha muslimiinta daafahooda ku nool inay soo caawiyaan wixii ay igu soo tari karaan igu soo taraan عادي هوي naga raali ah waxaan jeclaanahay lambarkaaga xagga hoosena waa laga qori doonaa lambarka shaashadu ka soo bixi doonaa bal lambarkaagana wixii lambar ee laga soo xiriirayna noo sheeg waxa weeyaan 625 3260 waa hagaag daawadayaal sida indihiinaba amaal weydiin muuqataa wanaad arkaysaan insha Allah waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhani inay nagu gacan istaagto hawshan khayriga ah ee wadno ka habla araga naafaka ahaan ama ka TPG ahaan waxaan taageeraa xigeenka ururka walaashii Xamdi Cabdi Sokso Xamdi marka ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliyeed oranaysa muxuu yahay kulli hadalkii oo dhan adna dhamaysay oo hadal muu harin balse anagu waxaan idin xasuusinaynaa mar walba inaan u taaganahay haweenka iyo caruurta araga naafada ka meel kasta joogaan ee afka Soomaaliga ku hadla intaasi waxay noogu dhamaaday muuqaalkii aan ku soo booqanay amaal yar oo igu wehelay aadnimo hore u xustay agaasimaha ururka Tafbalaan Geralins adna Maxamed Cali iyo qasnajiga ururka Sacda Maxamed Cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambeynteenu ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalka xiga waxa idin kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh